sidoo nin aan gaarin 40 oo ka soo jeeda qoys tabaqada dhexe ah u noqday astaanta kacdoonka iyo la dagaalanka isticmaalka galbeedka. waxa aynu ka hadlaynaa maanta Che Guevara, dhakhtar Argentini ah iyo siyaasi Kuubaan ah. haddaba soo dhawaada saaxiibayaal oo inala joog ilaa iyo dhamaadka. hadday taa markaadi kugu horeeyana inagu soo biir oo ka mid noqo asxaabta nagu xiran si aysan kuu dhaafin barnaamijyada aan halkan ku soo baahin. Ernesto Guevara waxa uu dhashay 14 Juun sanadii 1928. Guevara waxa uu ka dhashay qoys tabaqada dhexe ah. yaraantiisii waxa uu qabay xanuunka neefta, balse wuxuu ahaa nin firfircoon oo jecel akhriska iyo safarka. waxa uu bartay caafimaadka, waxa uu noqday dhakhtar. intii uu jaamacadda ku jiray waxa uu galay safar oo ku marayay dalal badan oo Latin America ah, halkaas oo uu ku arkay faqriga, dulmiga iyo cadaalad darrada dunida taal. waana safarkaas mid ka bedelay gabi ahaanba noloshiisii. kacdoonkii Kuuba iyo kaalintii Guevara. sanadii 1955 Guevara waxa uu ku biiray jabhaddii uu hogaaminayay Fidel Castro, taas oo doonaysay in la afgambiyo madaxweynihii xilligaas Kuuba ee Fulgencio Batista. waxa uu noqday mid ka mid ah saraakiishii ugu xoogga badnaa ee jabhadda. dagaal dheer kadib 1 Janaayo sanadii 1959 jabhaddu waxay xukun kala wareegtay madaxweynihii dalka oo dhanna ayada ayaa gacanta ku dhigtay. Guevara waxa uu qabtay xilal muhiim ah sida wasiirka warshadaha, madaxa bangiga dhexe, wakiil diblomaasiyadeed. waxa uu sidoo kale qoray buugaag badan oo ku saabsan dagaalka, kacdoonka iyo siyaasadda. Guevara ma uusan joogin Kuuba oo keliya, waxa uu rabay in kacdoonku uu gaaro dalal kale oo dunida daafiyeeda ah. sanadii 1965 wuxuu aaday Congo si uu u taageero dagaalyahanada kacaanka. qorshahaas waa uu fashilmay. intii u dhaxaysay sanadihii 1966 ilaa 1967 wuxuu aaday Bolivia isagoo abaabulayay jabhado kale. waxa uu doonayay inuu halgan cusub ka dhiso Latin America. ugu dambeystii 8 Oktoobar sanadii 1967 Che Guevara waxaa gacanta ku dhigay ciidankii Bolivia, iyadoo CIA-da waa sirdoonka Mareykanka ay siinayeen taageero iyo macluumaad. ugu dambeystii 9 Oktoobar 1967 Guevara waxaa lagu toogtay tuulo yar oo la yiraahdo Lohaigir. waxa uu geeriyooday isaga oo 39 jir ah. Guevara waxa uu noqday calaamadda kacdoonka iyo halganka. sawiradiisuna waa mid ka mid ah sawirada ugu caansan dunida ee la adeegsado kacdoonada iyo halganka. dad badan waxay u arkaan inuu ahaa geesi, halgamaa iyo halyay cadaaladdoon ah. kuwa kalena waxay u arkaan nin rabshado iyo fikri adag lahaa. haddaba saaxiibayaal, halkaas ayaynu ku samaynaa muuqaalkeena maanta. waa inoo iyo muuqaalka xiga. Assalaamu calaykum waraxmatullah.